السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحواني سلام الله عليال دمان أن وحن فيليا إن أد كجرتان ولاشين صفية فارح محمد سائي قبرتين صبحي إنا سوق ل7 وحلقا وإنا هذا من دي صودا هاي UK time إنه هاي 7 iyo 10 minute. adinku mahadsan inkastoo aan arkin laakiin waan sii wadanaya walaalayaal maantay waa maalintii koowaad oo caadi casharkeena noo bilaabanayay waxaan rabaa maanta marka waa haatog maanta waa hadal adag oo noloshaada kor u qaadayo saai wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xamza soo dhawow okay qalanjo wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu nuur wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu intaanan casharka u gudagelin horta alxamdulillahi rabbilcaalamiin allah subxaanahu watacaala mahad u sugnaatay in uu nabad iyo caafimaad nagu soo kiciyey in anigoo alxamdulilah maaragta neefsanayo oo caafimaad qabo oo caruurteyda ninkaygaan kasoo horkacay alxamdulilah idinkan waxaa idin rajaynaa caafimaad ilaahi subxaanahu watacaala waxaa uga baryaa inta muslimiinta xanuunsanna inuu caafiyo inta dhibaataysanna inuu allah subxaanahu watacaala dhib ka qaado walaashiina halkan waxay iga barateen inaa idin dhiirigeliyo dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay dhahaan gabadhan ma naqaano way soo gashaa maarkino she doesn't give up every day intay soo istaagtaa waxbay noo sheegtaa waa ogaa 100% dadka soo galo in ay yihiin dadka ardayda 99 iska ama 98 dadka wanaaga jeceliin laakiin dadka kale u sheegaya si kaftan ah yeesa iyo arkin waxa halkan usoo taaganaa shaqadeeda tahay waa dhiirigelin ina adinka idin dhiirigeliyo in adinka idinka dhigo maanta maaragtay maahan astaghfirullah idinka dhigo ma in aad nafsadaada ogaatid wixii ay rabto waa ogahay anagoo dhan ani hadda fiiri marka hore wixii gudahayga ku jira qalbigayga waa rabay laakiin dhiirigelin ma haysan maalinka dhiirigelin helay aan nafsadeeda bilaabay inaan kor u qaado marka adinkan waxaa idinla wadaagayaa wixii aan idinku dhiirigelin karo marka yaana la iga caroonin sida titlekayga uu ku qoran yahay 5 wax iska ilaali 5 qof noloshaada ka ilaali waxaa ka soo hadalnay in okay جزاكم الله خير سعد waxaa ka soo hadalnay in nafta horta aad la tacaashid nafsadaada kow casharadeedii badankooda wuxuu ahaa waxaan ka soo hadlayay nafsada negative-kay leedahay in adiga awoodda aad leedahay Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyay in adiga iska bedeli kartid noloshaada wixii maaragtay aad rabtid inay gaartid in ay kugu xiran tahay waxbarasho haddaad rabtid adiga nafsadaada waxaan ka soo hadlay in negative-ku uu ku xun yahay positive-ku uu ku fiican yahay waxaan ka soo hadlay in maskaxdeena aad sameyn kartid wax walba aad rabtid aad program ku sameyn kartid sababtoo ah adiga remote control u ah laakiin maanta waxaan ka soo hadlaynaa banaanka ku gaarsiin karaan dadka banaanka maxaa yacni oo dhibaato ay ku geysan karaan marka u baahanta inaad noloshaada hormartid sababtoo ah waxa meeshan hadda u soo joogtiin qof waxa idin ku jira dad waxbarasho rabo waxa idin ku jira waan idin sheegay waxbarashada yaraan iyo weynaan ma gasho xataa haddaadan background school aadan lahayn college secondary aadan lahayn university waxbarashadaada waa bilaabi kartaa meel kastoo aad joogtaa ka bilaabi kartaa gurigaaga library ka dhigi kartaa taas waa kasoo hadan so intaas haddaa rabtid dadka banaanka ku celin kara hadda sababtoo ah waxa laga yaabaa nafsadaada la soo tacaashay waa soo dadaashay nafsadaada in la digaashid in self talk oo nafsadaada gudaha iskala hadlaysa maalin kasta oo aad joojisay oo aad tiraahday enough is enough waxaan bilaabaa in nolosheeda aan kor u qaado taas waa ku soo dadaashay well done masha Allah tii kala marka fiirisay oo gudaha ku jiray oo ku wanaagsanaa waxa tir banaanka u soo dhigaya waxaan rabaa inaan wax wanaagsan qabsado in nolosheeda aan meel gaaro waxaan rabaa in aan maaragta noqdo kaba soo qaadba in maanta nurse aan noqdo waxa u baahana in xataa doctor level waxa u baahana in macallima noqdo ama in macallim noqdo waxa u baahana in business aan furto waxa u baahana sida KFC ninka furtay maaragtay warshadahaas oo dhan ama meelaha cuntooyinka oo meel kasta ka furtay ama McDonald ina aniga noqdo oo aan sameeyo sababtoo ah kuma dhaamaan fikrad aqlina kuma dhaamaan isku ibn aadana tihiin meeshay gaaray waa ka boodi kartaa laakiin maxay kugu dhaafeen kan hadaa baratid sidoo u shaqeeyo noloshaada easy ku noqonaysa soo intaas ka soo hadalnay introduction kan intuu soo 5 wax iska ilaali haddii aad igu disagree samaysidna is okay because ani waxaan jeclahay wanaagaaga waxaan ogaa qofku markuu rabo inuu hormarana wuxuu leeyahay wax maaragtay geesaha uga soo baxbaxo oo noloshiisa hoos u dhigo thank you Adam waxaa iska ilaalinaysaa negative people dadka negative-ka ah iska ilaali sababtoo ah
dadka negative-ka ah waxay adigyo already cleanse nafsadaada ku samaysay ay gadaal ku dhigi karaan because waa soo dadaashay nafsadaada cleanse ku samaysay waxaa ogaatay wixii noloshaada ah horumari lahayd hortaada soo dhigtay laakiin negative people negative kaasna waxaa two way sii kala yihiin negative dad ah waxaa jiro positive dhanba cunaayaba aan arki karinba eray positive afkaa markuu kasoo baxo negative-ka wuxuu ku siinaa opposite-kii adigana shaqadaada maaha in ayaga cleanse ka dhigtid sababtoo ayaga isnadiifin kara ayaga iska bixin kara negative-ka qofka hadduu negative virus uu watana ogow haddaa qol iskula soo gashiin 2 minutes kulma jiri kartiin ama 3 minutes waxaana u dhahayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam noo sheegay there's no doubt that 100% qofka aad la socotid in dabeecadiisa aad tahay taas one 2 neuroscientists waxay ogaadeen ay study badan ku sameeyeen adiga xataa waa raadin kartaa research sameey in wax aan qahaysano mirror neuron la dhaho oo ibn aadanka aan sunnahay indho muraayad aan sunnahay muraayadaasna waxay xataa waxay sameeyeen scan dadka madax ka saareen si ku ogaadaan in aniga maanta dhaqaaq sameeyo waxa laga yaabaa in madaxa xoqdo adigu ogeyn in madaxa xoqatid ina hindhisa laga yaabaa adiguna ogeyn in hindhistid so waxa ogaataa in qofka aad dabeecada ka dafi kartid marka ka daftidna adiga hadana dib isu dhigay taas waa negative-ka 2 waxa jeclaala ina meel ku qoratin sababta marka wax meel ku qoratid waxa xasuusanaysaa noloshaadana horumarkeeda ku dadaalaysaa kumana lihi asxaabtaada iska fogay kuma lihi dadka nac laakiin waxaan ku leeyahay aqligaaga ka fiirso dadka noloshaada wax kuu soo kordhin karo iyo dadka wax kuu soo kordhin karin iyo dadka caawin kartid negative-kooda sababta mas'uuliyad isma saari kartid inaad negative ka tirtirtid saan hore usoo dhahay adiga ayaa iska soo tirtiray qofkaasna asagaa iska tirtiri karo taas point 1 pointiga 2 labaad iska ilaali dadka markasta distraction kugu sameeyo waxaan ka wadaa marka aad focus tahay oo rabtid noloshaada inaad bedeshid waxaa laga yaabaa inaad rabtid inaad library book ka soo qaadatid waxaa laga yaabaa in plan aad nafsadaada ama business ama wax u plan garaynaysid oo markasta ayaga nafsadooda jecel oo ku dhaho inta aadina ama inta kaaga leexiyo ama inta kaaga soo waxeeyo oo markastaba distraction dadkaasna waa dad so nice ah maaha dadka ma ahan dad oo dadka oo yani negative ahaan ku tusinaya maaha dad wanaagsan waa noloshooda way hormareen nafsadoodina kore u qaadeen laakiin adiga taadi raba in distraction ka dhigaan oo ayaga aad raacdid oo wixii ayaga u saabsan waxa laga yaabaa in wixiis uu soo sameeyo qofka distraction ka iska ilaali waa qofka ugu daran shaqadiisii uu soo sameystay wuxuu soo gaaray heerkii rabo inuu gaaro laakiin break time adigu break ugu qaadan adigu wuxuu kugu qaadanaya happiness wuxuu ku leeyahay waraana keen maanta inta aadno waa inta ka baxno waa inta ka baxno adigana waxa laga yaabaa inaad dadaalaysid alla ku faysid oo noloshaada rabtid inaad hormarisid qofkaas iska ilaali distraction qofka dadkaasna waxay u badan yihiin always ma aragtay dad smart ah dad aqli miran laakiin adiga waxa isleedahay qofkan ku dayo waa qof wanaagsan qof positive ah waa daba soco laakiin waxa ogaataa in uu qofkaas ku leexsanayo markuu asaga dantiisa uu soo sameesto marka adiga waxa la rabaa you have to be smart enough at tirahdid okay qofkan wixii tiis uu soo sameesto ma isku kaayeen anigana marka teeda soo sameesto markaas isku waqti waa isla qaadan karnaa taas iska ilaali point 3 waxaa iska ilaalisaa dadka markastaba 3 waaya 1 waxaan kasoo hadlay negative people 2 waxaan kasoo hadlay distractors dadka maaragtay oo markastaba oo ku mashquulinayo oo mashquul kaa dhigayo wixii wanaagsan aad samayn lahayd kan saddexaad iska ilaali dadka mar walba ciyaaro play victim oo dhaho aniga laga gardana maanta dhan oo ku soo celceli sida cajalad camal markay daaran soo noqnoqoto oo maanta dhan ku haay aniga laga gardana hebel maxay sas noloshooda dhan bu ku jira taas iska ilaali sababtoo ah energy ka qaadaan sababtoo markaa rabtayna horumar adduunka gaartid iyo aakhiro waxa u baahan tahay juhd carabi ahaan okay carabi badan ma aqaano alxamdulillah laakiin igu filan iyo dadaalka wuxuu yahay in aad nafsadaada hor u marisid laakiin haddii qof aad aragtid maanta dhan ku soo celcelinaya victim in ay soo arkin xataa qalad inay galeen ee maanta dhan dhahay ay raadinayaan in qof kasta uu qalad ka galay حتى بنانك مكلال بنانك مرة سعد ده أركي أما باور بنانك مرايو سقلدن إنه وح أركي وأيجي ما أنت نقلت كيف رهان قلت كاس اللي قلت كاس وحقوقته إن الجيجاس إيه كاو حنايان إن نفس الدادة إيه ودرن تاي إن أديجن أهور مركري تاس و point 3 4 إسك إلالي دتك أن كو إلابين مستيجي قلت كي أهور أسوس سميسي صوبتو كل ابن آدم خطأ مدهن رسولك صلى الله عليه وسلم قف كستو ابن آدم وقلدمه
iska ilaali qofka oo mar kastaba ku soo xasuusinayo qaladkii hore u gashay. waxaa laga yaabaa inaad failure noqoto oo business kusoo dhacday, waxaa laga yaabaa in aad exam kusoo dhacday oo maanta aad geli lahayd, ama inaad wax kusoo dhacday. markay ku arkaan waxay ku soo xasuusinayaan taariikhda maalintaas iyo maalintaas saa ugu soo dhacday, qaladkii maalintaas iyo maalintaas aad samaysay ee maanta dhan kugu soo celceliyaan. soo dadkaas iska ilaali, sababtoo ah hor ma gaaraysid haddii maanta dhan laguu soo celceliyo waxaa hore u samaysay. ogowna qalad kasta oo dhaco qofka failure waxaa ah qofka give up sameeyo. failure qofka oo dib u dhaco, laakiin qofka hor u socdo waa qofka kufo oo haddana istaago oo kufo haddana marka dambe inta qabsado kabacdi noloshiisa way horumaraysaa. sababtoo ah anagoo dhan asaas ka samaysan noloshana ma horumaraysa haddaadan dhicin oo markasta aadan dhulka ku dhicin oo haddana aada istaagin. dadka markasta kugu soo celceliyo ku dhaho qaladkaaga saan u ahaa, qaladkaaga saan u ahaa, qaladkaaga saan u ahaa, dadkaas stay away from them, banaanka ka mar. waa 4. hadda waxaa soo sheegay so far negative people, distractors, dadka negative-ka ah, dadka ku mashquuliyo, iyo dadka jecel mar kastaba ma aragtay in ay ciyaaraan victim oo ayaga ee qaladka ma aragtay qalad dad qofkaas qalad iga galay ku dhahaan. waxaan ka soo hadlay marka kan ugu dambe number 5 waa ila socotiina u maleynaya screen kama fiirinayo. kan 5 iska ilaali drama queen. dumarka u badan iga raali noqda. okay, daacada daa ka hadlo anigoo aan ahaan bias waa ogahay nimanka drama queen inay qabaan. drama queen waa idin fasiraa dadka waxaa waaye jecel inay soo aruuriyaan waxantoo kale. subxaan allah, allah subxaana watacaala wuu noo sheegay xanta dhibka ee leedahay iyo dhibaatada, in jirkaaga u daran tahay, in maaragta caafimaadkaaga u daran yahay, in aakhiradaada u daran tahay. marka iska ilaali dadka intay isku soo fariistaan. waxaa la dhahaa drama queen ay dhahaan. drama queen waxaa waaye waxay soo aruurinayaan news, waxaana u badan xitaa ragga dhankooda inay sheegaan. ragga dhankooda waa hadda adduunka waa arkay awal waxay ahaayeen dumarka kaliya la dhihi jiray, laakiin hadda ragga u badan. the truth haddaa sheego waxay ugu badan yihiin politics. waxay galayaan internetka, waxay raadinayaan wixii ka dhacay dowladda, sababtoo ah adiga ma sixi kartid, wax aad sixi karta ma ahan. dowladdii dhex galayaan markaas waxaa lagu dhahaa inta qofkaas saasuu halkaas ka ah, qofkaas kale xagguu saas ka ah, qofkaas kale xagguu saas ka ah. waxay soo diyaarsanayaan resourceful oo buugaan oo dhan ah, the whole buugaas oo ah drama, buugaas oo dhan oo drama buuxo. adiga hortaada miiska la dhig marka bam dramagii adig ku galay wuxuu ku galay. qofkan wuxuu wataa every single day focuskiisa dhanba waxa ah inuu soo kaco uu aruuriyo wixii qalad ahaayo dhacay. fiiri hadda ma aruurinayo wixii wanaaga ahaa, wuxuu ku soo aruurinaa. maanta wuxuu ku leeyahay America kana ciyaartay qaladkaasi sameeyeen, maantay waddankaasaanay sameeyeen, maantay dadkaani saanay sameeyeen. wixii dhan ku soo aruuriyeen. wixii markii lagu soo aruuriyay qofkan waxa waaye mar kastaba drama wuxuu u yahay addiction jiro. addictionka waa number 1 ma aha dadka balwada kaliya leh. addictionka waxaa waa dadka oo ku leh negative addiction, waa dadka mar kastaba negative ka jecel. addiction waxaa ah oo kale dadka mar kastaba xanta jecel, sababtoo xanta waa wax la barto, waa wax adiga isbaraysid. marka isbartidna dadka kugu hareereysnaa aad u geysanaysid dhibaato, sababtoo adiga hadda maanta tahay dadka cleanse soo sameey nafsadooda oo ku jira casharadan ku taxna oo akhriyay even extra books ina akhrisana aan filaya alxamdulillah. أنا ما شاء الله إسك إلالي شنتاس وحاسو شيء شنتاس واحد دا إسك إلالي سيد نولش هذا ستيج كلا آد خر ومريسا هدو إلهي إدمو ما نقدر سيد يرانا آدي آد أمهات سنتين هدي خالد إيجت هاينا إسك كعافي because أذنك أو شنت قف أكهد لايو قابك إيجهين ودن آد أمهات سنتين أنا إسكو ديا هل وحنا آخرية كبح مرك أو دقن سعدية دو أمهات سنت هاي so intaas hadda iska ilaalisaan noloshiina waa hormarisin. shanta waxaa idin soo sheegay aadan u mahadsantihiin. waa inuu bari haddana hadduu ilaahay idmo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.